gurigii aan ku soo tiir iyo tacab beelay anigoo naafo ah oo waxay dad masaakiin igu caawiyeen aan ku gatayna maanta dumisa dhex yaal xali roobaa nagu da'ay ilmaha meelaa geena ma naqaano ilmihii cadarta waa kala firdhisan yihiin gurigiisaanu og yahay meel walba fiiri dowladda xasan sheekh maxamuud oo magaalada muqdisho ka wada barakicin xoog leh iyadoo oo dad badan ka barakicisay goobihii ay deganaayeen mucaaradka oo dhiraandhirinaya nooca doorashada ee Soomaaliya laga qaban karo saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday in magaalada Hargeysa lagu qabtay rag qaraxyo sitay iyo booliiska Somaliland oo arrintaasi ka hadlay Burkina Faso iyo Soomaaliya oo markii koowaad yeeshay xiriir diblomaasiyadeed ciidamada Itoobiya oo looga digay in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale xiiso leh ayaan idinku haynaa barnaamijkeena wararka Soomaaliya fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay barahan ku leenahay bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar Facebook noo follow garee barnaamijkeena noo like garee oo noo share garee si uu dad badan u gaaro mahadsanidin aan ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya barakicintii ugu xoog badnayd iyadoo boqolaal qoys maanta ilaa iyo shalay ilaa xalay gelinkii dambe laga barakiciyay xaafadaha ay deganaayeen ee ay ku noolaayeen muuqaal muujinaya shacabka degan xaafadda Calasow Dheere ama loo yaqaano Buulada Uud ee degmada Shibis ayaa waxaa halkaa ka barakiciyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi gaaray shacabkan oo gaaraya ilaa iyo 153 qoys oo danyar ah ayaa sheegay in lagu wargeliyay in ay halkaasi ka guuraan lamana oga cidda sida rasmiga ah ugu lugta leh barakicintan marka laga yimaado in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan ay halkaasi dadka ay ka rarayaan waliba iyadoo oo saaka la arkayay in xaafadahaasi lagula kalahay cagaf iyagoo dadku jiifa oo xilli hore ay tahay shacabkan ayaan wax digniina oo hore aan la soo siinin waxaana lagula kalahay cagaf xiimaysa iyadoo halkaasi dadka laga maqlayay qayladantooda iyo ku qaylinaya ama ku calaacalaya inaan waxba loo soo sheegin laguna wargelin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa ka soconaya aargoosi qabiil iyo dilal qorshaysan oo dhibaato weyn ku haya dadka reer Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo waxaa gurigiisa lagala baxay ama lagu dilay mid kamid ah saraakiisha dhinaca ciidamada ee ku hayta madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen tan iyo markii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed laga tuuray ayaa waxaa socday kala aargoosi lagula kacay qabiilka loo yaqaan xarinta ee uu ka soo jeedo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen arrintan ayaa waxaa ku lug leh dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta kamid ah reer Koonfur Galbeed oo ugu horeeya Sheekh Aadan Madoobe oo ka aargudanaya raggii ugu horeeyay xukunka iyadoo taliya shub uu hore u sheegay in guriga Aadan Madoobe lagu dilay rag ka tirsan qabiilka xarinta faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya doodaha ka dhex socda mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira isku geynta hanaanka doorasho ee ay agdhigi karaan kan dowladda federaalka Soomaaliya ay riixayso ama uu riixayo Xasan Sheekh Maxamuud ee qof iyo codka kaasi oo ah midka kaliya ee ilaa ay hadda suuqa siyaasadda yaala toddobaadkii hore wakiilada caalamiga ah ayaa u sheegay golaha mustaqbalka in ay la yimaadaan hanaan nooc doorasho oo ay miiska keenaan madaxda golaha mustaqbalka dhexdooda ayaa ku jira saacadihii ugu cuslaa iyagoo isku qancinaya hanaanka doorasho ama caynta doorasho ee ay soo bandhigi karaan kaas oo leh shuruudo ay foolaad u yihiin in guddi doorasho oo laba heer ah la kala sameeyo sida guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ah iyo guddiga doorashada ee dowlad goboleedyada ergooyin ka badan tii sanadkii hore ee 2021 iyo in beel waliba ay kuraasteeda golaha shacabka iyadoo ay u madax banaanaan doonto oo aan la siyaasadayn doonin sidii dhacday doorkii hore taas oo inta badan dowlad goboleedyadu ay iyagu gacanta ku hayeen doorashadan ayaa sidoo kale waxay rabaan inay ka dhigaan mid lagu qaban karo waqti kooban oo aan jiitan lahayn guddiyaduna ay dhex u yihiin dhammaan tartamayaasha oo aan cidna si gaar ah awood loogu siinin kursiga lagu tartamayo dhammaadka toddobaadkan ayaa la filayaa in ay dhinacyadu ay shaaciyaan nooca doorasho ee ay doonayaan iyadoo oo weli aysan jiho yeelan xaaladda dalka gaar ahaan tan miiska taalla ee arrimaha doorashada waxaana socda in hadda laga wada tashanayo nooca doorashada ee ay soo bandhigi doonaan golaha mustaqbalka
taliska ciidamada booliiska Somaliland ayaa beeniyey war si weyn ugu faafay baraha bulshada oo la sheegay in xaafad ka tirsan magaalada Hargeysa lagu qabtay walxaha qarxa iyo raggii wade. Taliska oo soo saaray war qoraal ah ayaa ku beeniyey wararka lagu faafiyey baraha bulshada, waxayna sheegeen inaysan jirin qaraxyo lagu qabtay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, isla markaana ay yihiin been abuur wararkaasi. Taliska ciidanka booliiska Somaliland waxa uu beeninayaa qoraal been abuur ah oo si qaldan loogu faafiyey baraha bulshada. Taliskuna waxa uu caddeynayaa in qoraalkaasi ayna waxba ka jirin, isla markaana uu yahay mid marin habaabin ah. Sidaasi waxaa lagu yiri war qoraal ah oo ay soo saareen ciidamada booliiska Somaliland. Sidoo kale ciidanka booliiska Somaliland ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano lagu ogaanayo cidda ka dambeysay faafinta warkaasi been abuurka ah, waxaana laga qaadi doonaa ayaa la tallaabo sharciga waafaqsan marka la xaqiijiyo. Dhowaan maamulka Somaliland ayaa sheegay in ay gacanta ay ku dhigeen hub laga keenay dalal shisheeye, kaasi oo la doonayay ayaa la yidhi in lagu kiciyo colaad beeleedyo, isla markaana lagu qalqalgeliyo nabadda gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan gobollo ka tirsan Somaliland oo ugu horeyso Awdal iyo Sanaag. Hubkaasi ayaa waxa ay sheegeen in looga dan lahaa in lagu kiciyo colaad beeleedyada, iyadoo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland uu sheegay in Somaliland ay wajahday faragelin dabadeed tan iyo markii ay ku dhawaaqday in ay hesho aqoonsi, taasi oo uu sheegay in ay sababtay in ay cadow badan ay yeelato. Wasiir Cabdullah ayaa markaasi tilmaamay in faragelintaasi ay qaabab kala duwan u dhacday oo ay ka mid yihiin taageero dhaqaale, dacaayado iyo weliba hub la soo gelinayay gudaha Somaliland. Waxa uu sheegay in hay'adaha ammaanka ay gacanta ay ku hayaan caddaymo la xiriira arrimahaasi, isla markaana waqtigan ay ku habboon tahay inay shacabka u soo bandhigi doonaan noocyada hubka iyo weliba waddamada laga keenay. Wafdi uu hogaaminayay wasiirka amniga Soomaaliya ayaa si diiran waxaa loogu soo dhoweeyey dalka Burkina Faso, iyadoo halkaasi ay ku qaabileen mas'uuliyiin kala duwan. Taliyaha ciidamada booliiska iyo saraakiil sare oo ka tirsan hay'adaha amniga ee dalka Burkina Faso ayaa soo dhoweeyey wasiirka amniga ee Soomaaliya. Booqashadan ayaa ujeedadeedu tahay xoojinta iskaashiga dhinaca amniga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Burkina Faso, iyadoo diiradda lagu saarayo la dagaalanka argagixisada iyo isweydaarsiga xogaha dhinaca sirdoonka iyo horumarinta wada shaqaynta hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo Burkina Faso. Sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadli doona sidii loo kordhin lahaa isfahanka ku aadan caqabadaha dhinaca amniga ee ka jira labada dal iyo weliba xoojinta iskaashi waara. Inta uu socdo safarkan, waxaa la filayaa in labada dhinac ay yeeshaan kulamo muhiim ah oo lagu falanqeynayo istaraatiijiyadda cusub ee lagu xoojinayo dadaallada wadajirka ah ee Soomaaliya iyo Burkina Faso. Kulamadan ayaa si gaara diiradda loogu saari doonaa sidii loo mideyn lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee xagjirka ah ee dhibaatada badan ku haya Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya iyo Burkina Faso ayaa dhowaan xiriirkooda diblomaasiyadeed kor u qaaday, iyadoo haatan ay muujinayso sida ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka dhinaca iskaashiga ee labada dhinac, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada. Taliyaha ciidamada dhulka ee dalka Itoobiya ayaa fariin u diray ciidamo cusub oo Itoobiyaan ah oo loo soo diray gudaha Soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgalka AYSOM, isagoo oo ku buuriyey in ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda ee Soomaalida dhexdeeda, isla markaana ay diiradda saaraan waajibaadkooda shaqo. Taliyahan ayaa sheegay in ciidamada ay bedeli doonaan cutubyo hore oo uga tirsanaa howlgalka, kuwaasi oo waqtigooda shaqo ugu dhammaaday. Waxaa sidoo kale uu ciidanka kula dardaarmay inay ilaaliyaan sumcadda dalkooda maadaama ay yihiin safiiro matalaya qarankooda Itoobiya. Ciidamo cusub oo Itoobiyaan ah ayaa la filayaa in dhowaan lasoo daabulo lana keeno gudaha Soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlaha nabad ilaalinta iyo xasilinta dalka. Falanqeeyayaasha dhinaca siyaasadda ayaa aaminsan in siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya ee ku aadan Soomaaliya laga yaabo in ay waxyar isbedesho, iyadoo ay jirto dib u habeyn ku socota howlgalka Midowga Afrika. Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee ciidamada ku biiriya howlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya muddo ku dhow 20 sano. Dalalka kale ee ciidamada ku leh howlgalkan ayaa waxaa ka mid ah Kenya, Djibouti, Uganda, Burundi, Egypt oo dhowaan ku soo biirtay howlgalkan.
daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wararka soomaaliya oo si toosa uga daawanayseen waama t v. fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada janalka subscribe noo saar, facebookga noo follow garee, barnaamijka like garee oo share garee si uu dad badan u gaaro.